الحمد لله إلهي بما هذا له رناهنتي وحيابه عن أركي وعيون نقطة وحاد لولا يابو وغير المسؤول لما أيان أركي runtii habeen dhaweytaan anigoo tagay hotel guuleed ay waxaan arkay wasiiro qaar wasiirada Soomaaliland ka tirsan oo runtii meel markaa ku cashaynaya oo cuntada agtaala ay tahay cunto qaali ah dabeetana runtii waan ku soo baydhay markaa runtii waxaan arkay waxaan la soconaa xaaladda uu dalku marayo oo ah mid aad u liidata haddii noqoto xagga abaaraha haddii ay noqoto muxuu ahaayey xagga sicir bararka oo runtii dadku ay marxalad adag maanta shacabka reer Soomaaliya ay la soo diristay markii qoladii wasiirada aan ku baydhay ayaa wax oo aad u qoslaya oo digaag iyo kalluun iyo cunto qaali ag taalo oo qosolka iyo kaftanka ka dhacaya runtii maalin dhaweyto markaa waxaa soo maray muxuu ahaayey xaggan galbeedka saaxil oo marka laga maxaa burxaan iyo aaga xukunto oo runtii aan ku soo arkay dad shacbiya oo aad u liita oo runtii nolosha ay ku nool yihiin ay tahay mid argagaxa marka waxaan arkay dad intay xoolihii marka ay dhaafeen ay dhinteen oo dad beerka dhulka ku haya oo dawladina aanay gaadhin aanay ciidan gaadhin guddigan abaarahan iyo waxa la sheegayana aanay gaadhin oo runtii marka marxaladda ay ku jirtay ahaayeen mid aad u liito oo foolxun oo qof muslima iyo qof bini'aadana in lagu eego aanay dhici karin tiyo maanta ay magaalada Hargeysa ama Soomaaliland ay bakhaarada iyo raashinku meel walbana ay buuxaan oo runtii dad gaajaysan oo gaajo u dhimanaya in la arkana ay khalad tahay marka runtii markii wasiiradii aan imidna waxaan ku yiri war muxuu ahaayey idinkuna halkan digaag iyo kalluun ku cunaysan dadkii mas'uulka adka aydan halkan ku baqteeyaan oo ay maartay dibeetana mid baan tusixnay eega igu yiri soo roobkii daayay igu yiri ka bacdi dibeetana mid kalena runtii indho aad ku runtii igu soo eegay ayuu raad iska raalle hor iska soo waa kamaan tigina waxaan ku yiri war dhageysta baan ku yiri xagga dadka shaqaalaha iyo ardayda laga qaadayo lacagta iska bixinayaan weli maan arag wasiirada Soomaaliland iyo xildhibaanada oo hal maalin la mushaarkii baan ku deeqnay mushaarkiina iska badaayay idinkoo xataa in waa $20 baan ku deeqnay maanta waxaan halkan ka sheegayaa in muxuu ahaayey wasiirada madaxweyne Siiraaye ay yihiin qaar liita qaar muxuu aqoon darro ay haysto jahliga iyo muxuu ahaayey dulmigu uu ka soo ifay oo maanta dalkooda aanay dan ka lahayn iyo dadka aanay dan ka lahayn waxaan kaloo halka ka cambaaranayaa maayirka berbera iyo maamulka berbera oo runtii muxuu ahaayey hantidii ummadda boobay oo guryo meel walba ka dhisanaya oo guryo qaali dhisanaya oo dadkii ay xukumayeenna ay ka mas'uulka ahaayeen ay ku baqtiyeen waxaan arkay odayaal iyo islaamo la iskaga tegay waxaan arkay dad wadooyinka fadhiya gaarigii bay iska hor dhigeen dadku waxaan leeyahay madaxweyne Siiraaye adiga ka mas'uula dalkan ilaahay subxaanahu wa ta'aala aduu kaala xisaabtami doonaa wala inaan ilaahay sida kaaga tagay maalinta qiyaamana waxa dab kulmi doontaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku calaysan ilaahayna wuxuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri war dadkiina tabaalaysan jilicsan u naxariista oo hoos u eeg haddii aad doonaysaan in la idin naxariisto maalin walba roob doon baad halkan qalad ka haysa war roobna ilaahay idin keeni maayo sidaan roob ku heli maysaan ilaa iyo inta dadkiina baaba'ayaan ee maanta ay wasiiradina ay guriyo iyo gawaadhi fiican nimankaas waxay ku kaftamayeen aniga gaarigaygu lambarkaygu ani waa fiican aniga waa $150,000 aniga $80,000 buu taagay maanta dadka bariga hadda maanta aragtid dadkii bariguna maanta waxay taageen cudurro iyo gaaj ayaa dadkii laysay ilaahay subxaanahu wa dadkana ciqaabkuna wuxuu ka yimaadaa oo ilaahay baa inoo sheegay subxaanahu wa ta'aala ciqaabkuna wuxuu ka yimaadaa waa dadka oo lagu daawado gaajada maanta ilaahay idinkaga tegi maayo raallina kama ahana idinkoo halkaa maanta nimco ku nool inay dadkiinina halkan ay ku baqteeyaan waxaan leeyahay madaxweyne Siiraaye waxaan leeyahay dhammaan wasiiradaada waxa waa kuwa ugu liitay ee madaxa noqda dhammaan dareeri baa la mid ha kaga tegi dad hagaagsan oo qiyamkooda wanaagsan yahay oo ilaahay garanayo oo ummadda ka naxayo oo dalka u naxay keensaba maanta leeyahay dhammaanna walaa agaasimo walaa wasiir midna ha kaga tegi maayiradana wax ka qabto maayirka berbere iyo mas'uuliyiinta berbera iyagana waxa laga qabto intay hantida ummadda boobayaan maanta dadkooda halkaas ku baaba'ay hal la iskana daayo waxyaabaha indhasarcaadka ah ee khiyaaliga in lagu daawadsiinaya inta TV-ga qaranka la soo dhigo dad kartooni wax loo qabin cidna waxba lama siiyo dhammaanna dadkii way baqtiyayaan muxuu ahaayey guddiga abaaruhuna waxay noqdeen qaar beerahooda iyo inta jifooyinkooda meelaha ugu geeyeen dabeetana yaro inta la TV-ga la idinka daawasiin dadkii reer Soomaaliland boqolkiiba 80 ama boqolkiiba 50 waa dad reer miyi tuulooyin dhammaan dadkaasna maanta xaaladoodu ilaysa sicir bararkana waxa laga qabto madaxweynaha dalkan ka mas'uula dadkii masaakiinta maanta waxay taagan yihiin in laga qoxo dalkii la iskaga baxo waxa la madaxweyne haddana dalkan iyo
iyo dadkan aan mas-uuliyaddooda qaadi karayn ilaahay subxana wa taala inta kugu ciqaabi lahaa xilkan iska dhiibo xaalad maanta waxa taagantay iyo wax ka qabatay inaad xilka iska ceshin bay taagantahay wasalaamu calaykum waraxmatullah